بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هالكن وحنا مانتا وفرنا يضرب بشوط هاي سغالية طبعا لبدا كوني يافر يا لباتنكا وركي عين مساحة وركان أو سو شقيني مدشن يتوسنا وإلى ما تعرفت هاي لبدا كوني يافر يا لباتنكي ururkaas wuxuu ka bilaabmay naftaada ka qaad oo naftaada u qaad hablo muxsiniin oo reer Soomaaliland ana bilaabay iyagoo ku bilaabay dadka danyarta ee xaafadaha degan inay uga qaadaan dadka ladan ee xaafadaha ku haysta ka bacdi ay qoodiyaan dadka jiljilaysan ee guryaha degan ee waxba haysan urur markii hore halkaas ka soo bilaabmay ka bacdi markii dambe wuxuu u gudbay isbitaalka weyn ee Dhibirka iyagoo hablahaas ilaahay khayr siiya maalmaha kamid ah ay booqdeen oo ay u tageen dad dhiban oo iska jilicsan oo aad u baahiyaysan ka bacdi qof xanuunsanaya oo haweena ayaa la hadasho tiri walaalayaal hadda waxaan siinaysaan bilis aad baan cunnaay waxaan idin ka codsanaynaa inaad noo casaysaan hablihii muxsiniintii halkaa marayay way danqadeen ka bacdi waxa ay soo galeen suuqa waaheen oo ugu horeysay markaa 2015kii waxay la shireen aniga iyo dad kamid ah suuqa Iidaan iyo suuqa Nafaqo waanu nimi waxay noo sheegeen hablahaas inay muxsiniintaasi ka shaqeynayeen adeega noocaas ah waanu la qaadanay anagoo ah suuqii waaheen waxaanu sameyn barnaamij aanu ugu wacyigelinay suuqa waaheen dadka Dhibirka ay xanuunsaneen qof waliba wixii uu ku adeegi karo uu ku adeego waxaanu sameeynaa shaqaala waxaanu sameeynaa kaariyoon adeega subaxdii waxaanu soo marnaa suuqa waaheen qudrada qof waliba wuxuu la baxaa salaad subax markii gaadho adeeg sadaqa ah oo tamaandho leh oo basal leh oo hilib leh oo qudrad leh labada adeeg ee waaweyn nafaqeeyo Iidaan ilaahay miisaanka xasanaadka u saaray dadka suuqa waaheen ka shaqeysta kabacdi waxa aanu sameeynay inaanu dhammaan isbitaalkii Dhibirka hananay haddana aanu ka sii gudbinaanu gaarnay inaanu dhammaan dhakhtarkii weynaayo dhan adeegii uu gaaray casaankii quruxdii adeegii hilibkii waxaan ku xigsiinay dadkaas oo ah dad fara badan oo jeelasha ku xareysanaa meeshan la yiraahdo Dhibirka inaanu u sameeyno barnaamij sida bisha Ramadaan iidahoo kala ah sanadka waxa la adeegsiinayay dad gaaray ilaa 1000 qof 400 ay dumar yihiin 600 ay rag yihiin waxaanu u sameeynay inaan qof walba labis u xirno gabadhana labis u xirno xanuunsanaysa ninkana labis loo xiro waxa loo sameeyay adeeg karo ah intimaha laga xiro furshaanta laga bedelo gooyaasha laga bedelo labis ay ku seexdaan oo dhameystiran loo sameeyo labis ay xidhaan oo dhameystiran loo sameeyo ra'iislayaal timaha ka xira sida dumarkii ragaba aan u sameeyno jirka loo meeyro sidii qofkiisii la jooga loogu shaqeeyay muddada 15 sano ilaa maanta sidaas hawsha loo waday ilaahay fadligiisa ilaahay dadkii wax la baxayna uu u barakeeyo way gaadhay adeegii waxa ayaguna qayb ka qaadan jiray suuqa waaheen bacadlaha ku yaala sida nimanka bakhaarada ah haweenka shiidka bixiya kuwa ragga bixiya kuwa lacagtooda bixiya waxa kale oo adeeg ayaguna kamid ah qaata bakhaarida raashinka oo bisha Ramadaan dad ilaa 200 qof gaadhaya u sameeya cunto aanay soomi karin dadkaas oo dadka suuqa ku nool ah oo ahaa dadkii meheradaha suuqa marka wax la karsado soo hor istaagi jiray wax loogu ridi jiray dadkii waxay noqdeen dad markaa meeshii ka baxay dadkii waxaanu sameeynay barnaamij ah in la afuriyaan la qadaysiyo qof walba waxaanu sameeynay beer safari oo buuxa caagad biyo ah oo ay nooc lagu kariyay oo waxa arkaysaana qofka waxa laga yaabaa in laba beerba la siiyo laba caagadood biyo la siiyo qof waliba isagoo suuqa jooga ayaa la dhargiyay waxa loo sameeyay adeeg haweena oo suuqa la wareega goobaha suuqa oo dhan mara qof waliba halku joogo waxa ugu geeyaa goobo cayiman oo kale loo dhigo oo dadka waalwaaleen markii qof waliba meesha wax lagu siiyo u baranayaa goobo cayiman oo loo dhigo qof waliba ku soo hagaago ku soo doonto subaxdii
وكقاتا ديكيسة إلهي ميسانك حسناتك وصار رئيس سومالان دمان تودو ندعيننا عدك تصوك قيب قادتي حبلهن إلهي هبركي وحي أديكتين ويلبحين حوقودي كون كاقفيد أركيسو أفرت بقولي هوينا حبلها أدركيسا محسنين تابا قعنتودا كتولا دركا oo dawaarawiya la qof xoogiisu sadaqadaysta qofna maalkiisu sadaqadaysta qof gacantiisu sadaqadaysta oo kariya wadiga arkayo intaas oo haweena cuntaday karinayaan way moorinayaan way suugeynayaan way xirxirayaan adeegaas oo dhan waxa qaabisan ilaahay miisaanka xasanaadka oo saaray hablaha muxsiniinta ah oo qof waliba salaadii subax markuu caruurtiisa gurigiisa ka yimi xoog saaray dadka ilaahay dhibirka ka qaaday xanuunsanayay meel walba fadhiyo dooxa fadhiyo biriishka fadhiyo suuqa fadhiyo dadkii ku noolaayeen ay ka soomeen maanta halkoodii ku baahi tiro ku dhargiyay ururkani markii hore wuxuu ka bilaabmay Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa iminkan wuxuu ku fiiday 5 gobol ee kale gobolka dagaalku ka socda mooyaane 5 gobol ee kale waa saasi dhaqdhaqaaq uga jira oo looga shaqeeyaa waa urur isku xidhan marka waxaan halkan maanta uga ducaynaynaa dhammaan ururka waaheen iyo ururka iidaan iyo ururka bacadlaha baqaareyda iyo ururka raashinka ee baqaareyda raashinka iyo dhammaan haweenka karinayay iyo dhammaan cidii soo gureysay iyo dhammaan cidii qaybinaysay waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydii saaro qofkii xooga la baxayna waxaan leenahay ilaahay xoogaaga ha ku barakeeyo qofkii maalkiisa la baxana waxaan ilaahay maalkaaga ha ku barakeeyo qofkii wixii la cunayay la baxna waxaan leenahay ilaahay waxaad haysa barakaha ku geliyo qofkii wixii la xidhanayay qofka cawradiisa asturayay bixiyana waxaan leenahay ilaahay adigana maanta qiyaamo cawradaada ha asturo marka halkan waxaan baaq weyn uga dirayaa horta dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogtaba iyo cid kasta oo muxsiniin oo dadka muxsiniinta ay jecel inay waalidkooda wax u bixiyaan naftooda wax u bixiyaan awlaadooda wax u bixiyaan maalintan dhaweytana waxaanu bixinay dharkii iida oo la qaybiyay oo gaariyay 1000 qof aan idin sheegay marka barnaamijkana saas weeye aad iyo aad waxaan ugu ducaynaynaa idinkana waan idin ducaynaa TV ahaan hawshaan kala qayb qaadateen maanta ee waqtigiina idinkoo sooman oo soo dayacdeen si dadka masaakiinta ee muxsiniinta ah u baahisaan waxaanu jecelahay cid kasta oo meel kasta joogta inay gaarsiisaan in dadka loo gurmado oo la caawiyo oo inu gacanta ku hayno oo rabadaan iyo rabadaan la'aan sidii gacanta loogu hayo oo loo ogaado halkay u hoyanayaan oo dadka guryaha ku dayacan la soo qaado la geeyo meel lagu xanaaneeyo dawladda laftigeedana waxaan baaq u jeedinayaa madaxweynaha iyo wasiirka caafimaadka iyo wasiirka diinta iyo waqaafta iyo barasaabka gobolka dhammaan inay nagala qayb qaataan hawshaas iyagoo iska xil saaraya maanta inta waalana iyaga u dawladda inta xanuunsanaysan iyaga u dawladda inta miirka qabtana iyaga u dawladda ilaahay uu isku keeneegayaa markaynu keena baahi tirna ilaahay baahideena awdaya samada ilaahay roob inooga keenayaa dhulka ilaahay doog inooga keenayaa arlada inoo barakoobaysa dadkeena waalwan waxay ka koobayeen hablaheeni hooyooyinkeen aabaheen inamadeenii intaaba way ka koobayeen markaaynu dadka dayactirno ilaahay inagana dayacino awdaya markaynu dadka baahiyahooda buuxinana ilaahay inagana baahiyaheenu buuxinaya marka waxaan leenahay dawlad iyo shicibba inaynu dadka 6 gobol ee Soomaaliland ku nool dayactirno ama tuulaha noqoto ama caasimadaha noqoto in goobo waaweyn loo dhiso dhaqaatiir gaar ah loo sameeyo halkay seexanayaan la eego waxay huunayaan la eego waxay goglanayaan la eego nadaafadooda laga shaqeeyo dumarkana si gaar ah dumar loogu sameeyo ragana si gaar ah rag loogu sameeyo gacmo wada jir bay wax ku qabtaan marka waxaan halkan iyadana fariin uga diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo dhammaan wasiiradiisaba waaheen oo ah suuqeena weyn ee magaalada Hargeysa oo qaybihiisa kala duwan qudaartii hilibkii dhammaantood waxa weeyaan hawshaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku kaalmeeyay isku dubaridii Cabdulqaadir Ismaaciilna uu maanta inoo joogo waxa Ilaahay mahadiya inaynu hawshaas aynu dadkeena u hayno isku daynay muddada 15 sano ayna xidhiidhino ahaato Ilaahay baa ku mahadsan waxa kale oo iyaduna aynu ku darnaa inaynu ciidsiino ayaamaha bishu soo gabagaboobaysa ugu yaraan 1000 qof oo dhimirka
وعيسيسة مضلة عين نصيحة إلهي بانا مهد كله يدنا وحفليها وشا سوق واهين قيبها بعضها يو دار يو العقبة يجا سكانة إلهي سبحانه وتعالى ميسانك حسنات كهو قدره waxa aad iyo aad iyaguna si fiican oga qayb qaata kambaniyada raashinka qaar kamida oo iyaguna maaragtay raashinkooda keena ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro bulshadeena qaybtii inoogu jilicsanayd ee inoo baahnayd ayuu barnaamijkani uu ku fulaa had iyo jeer dhibaatada jirtaana waxay tahay bisha Ramadaan ilaa ma Soomaan dadkii kalena meelihii wax maaragtay marmarayeen wax ka cunayeen way xiran yihiin waxa intooda badan kaliinana way qaataan gaajo ay dareemaan deetana aad xanuuno kale saayida ku soo kordha arinta Ilaahay wuxuu inoo suurta galiyay inaynu xilli hore oonay dadku kala wax karsan in iyaga goobahooda lagu gaarsiiyo waxayna la jooga hawlwadeenadii gaarsiinayay aamina kamida waxayna la jooga sidoo kale Allahumma salli ala Muhammad hablihi inoo karinayay dhamaan madalada ay nasiixa waxay isku dubriday barnaamijkaas maalin kasta 100 qof in maaragtay lagu gaarsiiyo afrinta dadka dhimirka Ilaahay baana ku mahadsan salaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh Allahumma salli ala Muhammad halkan waxaan ka socdaa ma sha Allah tabarakallah nimca aad iyo aad u fara badan oo la koobi karin maalinkan maanta ayaalan ka socota dalada cayna nasteexa ma sha Allah iyo maalinkan maanta maamulkeeda iyo inta garab siisa iyo inta maalinkan maanta tabantaabisa aad iyo aad baan u salaamayna aad iyo aadna waan ugu ducaynaynaa ma sha Allah tabarakallah inakoo maalinkan maanta hawsha iyada intii Ramadaantii iyo maalinkan maanta ka horeysa wixii la tabantaabin karayo la tabantaabinay raashinkaani ma arkaysan waa raashinkii dadka masaakiinta ee Ramadaanta Soomanaa dadkii laga soomay ee xanuunsanayay ee dadka waalan lahaa ee dadka ciyaalka lahaa ee dadka waaweyn lahaa wixii la gaarsiin karo ayaa maalinkan maanta aanu gaarsiinaa ma sha Allah tabarakallah marka waxa weeye maanta bishu maanta ay tahay 29 oo Ramadaan maanta ma sha Allah tabarakallah ay gabagaboobayso marka waxa weeye maanta gabagabadii weeyaan laakiin insha Allah Ilaahay idamkii waxaan ka baryay Ilaahay inaan gabagaba noo noqonin ee hawshaas iyo hawl kale oo fara badan oo la mid ah inagu ognahay ay sii socoto oo dadka xanuunsanaya oo maalinkan maanta dhimirka iyo dadka jilicsan ee aan cid haysan dad gobolnada jira oo cid haysan oo aad iyo aad guriyaha ugu darxumaysan waxa jira dad xanuunsanaya dad waalan oo dadkii xataa hayay aan tamar iyo awood toonaan oo haynin maalinkan maanta dadka maanta sida loo tabantaabinayay in aan tabantaabada laga deeynin ee tabantaabadii u sii socoto qof wala wixii uu kari karo ee awoodi karo oo ka geysto xoog iyo xoolo labadaba uu ka geysto ayaan insha Allah Ilaahay idamkii Ilaahay idin ka rajaynayaa marka waa weeye ma sha Allah tabarakallah raashinkaas waa ka dadka suuqa la jooga ee xanuunsanaya ma sugi karaan xataa inta la soo karinayo ma sugi karaan saasay dhagaha nooga cunaan ma sha Allah ma la keenay me qaarba waxaan ku beerkan saas waqtan waxba ma agaajoonay hadal ma lahayaan qaarba saas silsilada wax baano afarta dimba ka xiran oo maalinkan maanta meesha noogu yimaada marka waxa weeye dad aad iyo aad u tabaalaysan baa wadankeena ka buuxa ilaahayna uu isku keenay sida uu sheegay Cabdulqaadir marka waxa weeye hawsha iyada ay maanta bilownay Ramadaantii iyo tii ka soo horeysayba raashin kale dhar kale wax walba le ma sha Allah waxaan doonaynaa inaan inta ka sii korino oo hawsha halka ka sii anbaqaadno oo maalinkan maanta dadka jilicsan ee dalkeena jooga ee nala jooga ee dhamalka ee ragale ee dumarka ee caruuraha leh ee kuwa yaryar maalinkan maanta suuqa darbi jiifka maalinkan maanta dooxa taagan leh ee waxa la waxay haystaan aanu jirin inaynu ururino oo intaanu is urursano hadii Ilaahay ka dhigo aynu meel u dhisno oo meesha maalinkan maanta lagu ilaaliyo lagaga warhayo ayaan maalinkan maanta idin soo jeedinaya insha Allah biidnillah Ilaahay idamkii dadkeena aad iyo aad u jilicsan yahay tabaala badan bay nagu dhex jirta marka waxa weeye ma sha Allah tabarakallah Cabdulqaadir baa dhameeyay xasanaadka Allah idin saaro kii shaqeeyay kii keenay kii kariyay kii tabantaabiyay inta Ilaahay waxaan uga baryayaa jannada fardoos aala Ilaahay inuu ku geliyo war Ilaahay uga baryayaa khayrkana waxa weeye way isku boorina oo isu sheegna wixii khayra wixii iska dabaalna oo iska qabana insha Allah khayr badan baan idin rajeenaya aad iyo aad baan idin wada salaamaya ilmo iyo hablo iyo dhamaantiin wada salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh
ilaahay waxaan ka baryaa kuwii soo baxsaday iyo kuwii qabtay bay nacaas miisaanka aakhira ilaahay ugu daro dadka xanuunsanaya ee jilicsanaya Soomaaliland ku daadsan waxaan doonayaa inaan gacmaha isqabsano oo ilaahay dartii aynu caawino ka xoog sadaqadaysanaya iyo ka qaadaya iyo ka karinaya iyo ka keenayaba miisaanka aakhira Allah ugu daro ilaahay subxaanahu wa qaadir saasaynu ka baryaynaa sidaasaynu khayr ku gaaraynaa haddaynu gacmaha isqabsano oo jilicsan eegno kaagoonka eegno karajayga eegno oo kaan waxba haysan eegno ilaahay waa inoo dambi dhaafayaa ilaahay saasaan ka rajaynayaa qodada naga duubta iyo kuwa maxay tahay maamulka iyo istaayil xuseen iyo maamulka iyo dhammaan jamaacadda ilaahay miisaanka aakhira ugu daro ilaahay jariis xasanaad ayna wada siiyo kulligeenna gacmaha isqabsano dad walaalaha Soomaaliland dadkeena jilicsan caawino saasaynu ilaahay weydiinaynaa wixii muxsiniinta wax ku darsanayaan nin walba miisaanka aakhira ilaahay saaray annagu xoogaan ku sadaqadaysan waxba kuma darsanee wax ka badan waxaan rajaynaynaa ku darsano ilaahay ka rajaynaynaa wassalaamu calaykum raxmatullahi alxamdulilah kolley aan ka yaro warbixiyo waan dib ugu noqdo kol anigu magacaygu waa Mustafa jimciyadan aynu nasteex ayaan ka tirsanahay waxaan qaabilsanahay qaybtaas oo guritaanka hilibka iyo qudradda haddii aan ka warbixiyo gelitaanka suuqa dadka magaranaysa ay walaaliheen ee shaqada la iga diray runtii dadka hilibka iibinaya aad iyo aad baan ugu duceeyaa sababtoo ah dadka masaakiinta ah marka loo dhex galo si fiican ayay wixii looga dalbaday magaranaysa ay u soo dhiibaan sidaasoo kale ayaguna waxa ayaguna xusid mudan qolada ayaguna qudradda ee booshariyada marka la dhex galo ee kaaryoonka la soo horjoojiyo booshari kasta uu buuxiyaa iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dirtii u bixinaya marka arrimahan horta anigu aan suuqa ku hayaa waa sidaa marka waxaan leenahay waa bir Ramadaan ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro kuwa qudradda bixinaya kuwa hilibka bixinaya iyo cidii kale ee ka qayb qaadataba ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka aakhiraha ugu daro assalaamu calaykum wa rahmatullahi